Soomaaliya waxa ay ruuclo orod ugu jirtaa in laga dhaafo deymaha 5 bilyan ee dollar ku dhow ee lagu leeyahay tobannaankii sano la soo dhaafay waqtigii burburkana lacagta dulsaarka ay ku sii badanaysay magaalada Washington waxa ku sugan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale tiro kamida golihiisa wasiirada oo uu kamid yahay wasiirka maaliyadda waxay la kulmeen wafdigan madaxa baanka adduunka xogayaal Mareykan iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka IMF dhammaantoodba waxa ay kala hadleen sida waqtigan looga deyn lahaa Soomaaliya lacagahaasi deynta haddaba Soomaaliya shuruudihii hore loogu xiray in lacagtaasi laga daayay ma fulisay sidee ayay ugu sahlan tahay in deyntaasi laga cafiyo mase la jooga xilligii Soomaaliyaba ay codsan lahayd in deymahaasi laga daayo maxayse uga dhigan tahay waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan marti ay igu yihiin Dr. Maxamed Culusow oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya degan gudaha dalkan Mareykanka Professor Hussein Warsame oo ah dhaqaalayahan degan dalka Canada isla markaasina kamida guddiga dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dawladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan kana mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Washington waa tahay dhamaantiinba soo dhawaada waan dhownahay Sahra waa hagaag waad baad mahadsan tahay bal ugu horeyntii haddaan ku bilaabo wasiir Jamaal waxaad faahfaahin naga siisaa kulamadii maalmahan aad la qaadateen madaxda ka tirsan hay'adda IMF-ta iyo World Bank-iga iyo sidoo kale saraakiisha Mareykanka waa mahadsan tahay Zahra waxaan salaamayaa labada doctor aad iyo aad u mahadsantihiin maxaan nimi Mareykanka waan qayb ka ahayn wafdiga hogaaminaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oon joogna dhowr beri waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano shirarka guuga ee ka dhaca Washington ay soo qaban qaadeen hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka sidoo kale waxaan u nimi inaan la kulanno dawladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan oo shirarka hadda ku guda jirno shirarkii aan la galay markaa hay'adda iyo bangiga labaduba si fiican ay noogu socdaan intii badneed waaweyneed waa ka gudubnay wax badan oo isla meel dhignay kuwii Mareykankana waa noo socdaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan soo gabagabayno oon waddanka ku noqono dalad waa hagaag dad badani waxa ay hadal hayaan sida ay Soomaaliya ugu suuroobi karto in deyntan 5 bilyan laga daayo wadiiqadeed marteen maxaase idin dhiman waa su'aal fiican saad la socotid ka badan 5 bilyan ayaa leena ku leeyahay oo deyna oo ururad badan iyo dawlado badan ugu leeyihiin marka si deynta laga cafiyo waxa jira process la maro wadadaas oo ay jeexday hay'adda lacagta adduunka oo wadamada badan inagana la midka ah wadamadaas oo dhan soo mareen waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xiraayo shuruudahaas oo rabo in systemka dhinaca maaliyadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca arrimaha bulshada waxyaalo fara badan meelo fara badan oo arkaan haddii wax laga qabto inuu waddanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta marka loo ogolaan karo deynta laga cafiyo si ugu sahlanaato inay markaa helaan loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn processkaas marka hawshaas waxay noo socotay muddo dhowr sano ah qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabaynay intii weyneed loo qaybood way qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabaynay bishii hadaan soo dhaafnay 17keedii oo 18 shuruudood oo nala ku xiray sanadkii hore aan ka soo baxnay dhamaantood hadda bishii shanaad ayaan waxaan gelinayaa intii ugu dambeysay wada hadal ah oo dhowr bilood qaadanaysa taas oo la fiirinayo 6 bilood sidaan wax u maamulo dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan shuruud kale ah dhimida saboolnimada barnaamij la yiraahdo oo qorshaha qaranka ugu dhex samaynayo IPRSP loo yaqaan iyo kan saddexaad oo ah in waxyaalihii la soo sameeyay waaweynaa reformka hore loo soo sameeyay inaan dib looga noqon shuruudahaas yararka fudud waan rajayn dhamaantood inaan kasoo baxno qaybtii dhimida saboolnimada qabi qoraalka hore waa gudbinay way ogolaadeen tan kalena waa tii aan hore usii wadnay waxaan rajaynaa haddii alla idmo inta sanadka hadda inaan iska dhamin arrimahaas dabeedna la gaaro wax loo yaqaano waqtiga go-aan qaadashada oo decision point la yiraahdo kaas oo noo sahlaya marka inaan dib ugu noqono processkii wax hibik initial process la yiraahdo galayna oo noo fududeynaya inaan marka la macaamili karno bangiyada waaweynaa iyo deeq-bixiyaasha waa tahay markaasi dalalka deymaha Soomaaliya kule ma dal ayaad ula xiriireysaan oo wadan walbaba gooni ayaad uga codsan doontaan mase si guud dalalka ku jira qaramada midoobay amaba hoos imaanaya bangiga adduunka ayaa idin sameyn doona si wadara inay idin cafiyaan dad badan oo kala duwan ayaa nagu leh marka qolada ugu badan nagu leh waxa la yiraahdaa Paris Club iyaga muddan wada hadal noo socdeen wadankan Mareykanka deynta ugu badan nagu leh shalaan wasaaradda maaliyadda la kulanay wadamada carabta islaamka iyaguna lacag badan ugu leh 2 bilyan ka badan
kulligood dhowr goor ay waraaqo soo saareen oo shirarka carabta kii ugu dambeeyey ay yidhaahdeen Soomaaliya deynta waa ka cafinay marka iyagoo dadku tusaya inay deynta ka cafiyaan ama diyaar u yihiin inay ka cafiyaan sida Talyaaniga iyo wadamo badan shuruudahan waa inaad soo martaa processkan marka processkan ku dhamaado ayaa markaa dadka wadamadii lala xiriiraya oo wakiilada u jooga bangiga iyo hay'adaba lacagta iyaga markastana waan la kulnay dhamaantood iyaga ayaa markaa gudbinaya go'aanadii hore u qaateen gaargaar iyo kii urur ahaan ku qaateen ayaa la isku darayaa 70% dadka deynta kugu leh hadday isku raacaan processkaas waa ku hirgal waxaa jira marka qayb kale oo hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ka mid yihiin oo aan ahayn dawlado iyaguna lacag nagu leh groupkaasna iyaguna processkana qayb ka yihiin wayna ogolaadeen waxay yiraahdeen markaad soo gaartaan halkaas oo bis sanadkan ka hadhidaan dhameysaan shuruudahan ku heshiinay ayaan anaga lafteedu marka qaadanaa qaybteedii oo waxaan idin furanaa page cusub pagekaas oo hibigaas oo marka uu dhamaado noqon doonto wax balaafi marka haddii alla idmo daan sidaan ugu talagalay ayaan ku shaqeynay wax ku socdaan rajo aad u fiican ayaan qabnaa in dhawaana soo gabagaban doono haddii alla waa tahay bal waxaan aadayaa dhinacaasi Michigan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow muddo ayay Soomaaliya hadal haysay in deyntan laga cafiyo bal markaad dhinac ka eegto adigu maxaad oran lahayd dhamaan gaar adiga iyo saaxiibada igala qayb galay wasiirka iyo Professor Xuseen waa salaamaya runtii hadda anigu waxaan isleeyahay horta ka hadlida deynta iyo arrimaheedu maahan waa dad wax laga yaabe muhiimadda iyo dalka u leedahay waa wax la qiyaasi karo ah inay muhiim tahay in dal haddii deyn lagu leeyahay laga cafiyo ujeedada loogu talagalana waxa weeye deyntii lacagtaas lagu bixin lahay in dalkaas uu helo fursad uu horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa uu bixiyo laakiin haddaan hadda Soomaaliya usoo noqono runtii waxa weeye mawduucan ka hadlidiisa iyo waqtiga la geliyey iyo maaragtay sida dadka loo tusiyey waxaad isleedahay waa wax aan loo baahnayn waqti badanna looga luminayo dadka hawlihii dalka la rabay in laga qabtana runtii aad u malaynayso ka maran habaabinaysa hawshaanu dhinac waxa weeye horta hawl farsamo weeye wasiirku waxa uu sharaxay waa hawl iska farsamo oo maaragtay processka kalmadihiisa waaweyn waxa ku dhex jira ayay yihiin laakiin waxaa ka hooseeya waxa weeye siyaasad maamul maaliyad muxuu ahay iyo hawlo kale oo la rabo in la fuliyo sida hadda wasiirku sheegay 18 maaragtay shuruudaana la ku xiru yiri haddaad fiiriso shuruudaha lagu xiray ma ahan shuruudaha hadda weyn waxa weeye Soomaaliya mushkiladda haystaa waxa weeye gurigaadu dumay oo hortiisa qashin badan yaalo marka warsi gurigaada bal wax looga qabto marka horeysa qashinka iska qaad camal adoo lagu yiri oo kala weey marka waxa la leeyahay waxa weeye war sharcigeeye baarlamaanka ku saabsan sida dakhliga loo ururinayo oo canshuur aan sharci lahayn ha qaadinina maaragtay waxaad yeelaysaan bangiga hagaajiya maamulkiisa iyo sidoo u baahan yahay iyo dadka tababarkiisa waxa loo baahan yahay inaad sameysaan mataqaana dakhliga kordhiya marka waa waxyaabo oo yaryar oo adigu tilaabooyinka ilaa hadda dawladdii hore iyo dawladdan ishuga ugu weyn oo la isku haystaa waxa weeye wax la yiraahdo public financial management wax la yiraahdo war miisaaniyadda dhaqaalihiina heshiisay u maamuleysaan ayaa la isku hayay marka ayadii baa hadda weli meel la saari la yahay oo taasoo keentay marka waxaan isleeyahay runtii ma mudnayn maaragtay waxa weeye inay dawladdu ka dhigato maaragtay deynana la ka dhaafay waayo inay ama deyn kala soo qaadatana laakiin waa wax muhiim u ah dalka oo ay tahay inay dawladdu raadiso Soomaaliya sidii looga deyn lahaa qayb ay ka tahay horumarka wadanka ma waqtigeedii hadda wax ka badan oo uga muhiimsan ka jira oo 100% uga muhiimsan deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso deeqda la siiyaa ka badan hadda wadanka waxa ku baxda waxa weeye 2.5 bilyan oo dollar ayaa sanadkan kaliya ku baxday oo aysan ku jirin wixii miisaaniyadda iyo waxyaabo badan oo aan la sheegin ayaa ku tala gashay marka deeqdii la siiyey kaliya hadday ka faa'iideysan lahaayeen 4 sano hore iyo 2 sano waxa laga yaabaa dalku horumar u gaari lahay marka deyn haddii lagaaga dhaafana meel cidla ka imaan maysa lacagtu haddii meel ay ka timaado waa inay meel kale ka soo baxdaa waa inay timaadaa deynta ayadiina hadda waxay ku xiran tahay siyaasad oo arrimaha la isku haysto oo aan kugu soo noqonaya
Dr. Culus oo kugu soo noqonaya balansiyo Professor Xuseen Warsame dhaqaalaha Xuseen Warsame Soomaaliya wax badan ayaad ka warqabtay guddiga dhaqaalaha loo magacaabaad kamid ahayd dhawaantan Muqdisho aad joogtay halka haatan ay wax ku socdaan dhinaca dhaqaalaha horumar ma kaaga muuqda Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in deyntan laga cafiyo Sahra waad mahadsan tahay aan salaamana saaxiibkay Maxamuud Culusow iyo Minister Jamaal labadaba aan salaamo horta Minister Jamaal si fiican ayuu sharxay meesha wax marayaan wana ku mahadsan yahay inuu nala socodsiiyo rajana waa ina geliyo runtii oo waa aad iyo aad u fiican Maxamuud Culusow wuxuu ka hadlay ma garanaysaa hawlaha yaala oo had iyo jeer koobka waxa la yiraahdaa dadna wuxuu arkaa inta maran dadna wuxuu arkaa inta buuxda ayuu arkaa marka in badan oo inta maran arkaysan hello aad baa loogu baahan yahay Culusow inta maran buu arkay inta maran baana runtii maanta dee badan arrimaheena Soomaaliya dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo kordhayo la iskuma hayo oo ma garanaysaa de waxba ku soo kordhay sanad walba inuu wax ku soo kordhaana waa de laga marmaano haddii aan wadan awalba dhulka yaalay haddana wax ku soo kordhin macnaheedu waxa weeyaan babada waa meel la baqtiyay weeyaan markaas 3.5 buu ku kordhay baa la way socdaa laakiin aan ku noqdo arrimahan deynta iyo sida muhiimada ay leedahay inaan helo horta lacagta la nagu leeyahay waa wax ku dhow 5 bilyan sidii Saaraa sheegto waxa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa inteeda badan sida uu sheegay Mareykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay Talyaaniguna 600 milyan ayuu nagu leeyahay iyo Faransiiska isaguna intaan ku dhow marka laba wada kaliya hadii la isku daro 2 bilyan hadii marka kuwa loo dhawaado waa waxba yar hagaagi doono waa laga yaabaa inay demaha la naga dhaafo waa runtii wasiirka lacagta ugu badan waxay nagu leh Paris kalabka ayaa nagu leh oo 2 bilyan iyo bara kuwan nan kalabka la yiraahdo oo Carabtu hogaaminayso United Arab Emirates hogaaminayaan iyo Kuwait oo mid walba maliyun wax ku dhow nagu leh iyagu ma badna waa 600 milyan weeyii qolada laakiin shalay la kulmayeen ayaa iyaguna wax bilyan ku dhow International Monetary Fund ama ma garanaysaa hay'adda sanduuqa lacagta iyo World Bank labadooda marka la isku daro wax bilyan ku dhow ayay inagu leeyihiin Africa Development Co 150 inagu hadii lagu darana waa lacag badan iyo Arab Bank inta iyaguna hadii naga dhaafaan marka waxaan ka wada hadii kuwa la naga dhaafo waxa markaa suuragala in ay bedeli doonto sheekada la hayo ee dhaqaalaha narrativeska waxa la yiraahdo bedelaysa wadan kaliya hadda la noo arkaya oo maalgelin mutaysta sida Shiinaha iyo waxay nagu tartami doona wadamada Carabta iyo North America ayaa nagu tartamaya ayaan qabaa waa tahay haddaan bal dib ugu noqdo wasiir Jamaal mudane wasiir waxaa jirta sida uu ka dhawaajiyay Dr. Culusow in lacag la siiyo Soomaaliya deeqa ah lacagtaasi balaayin ay gaarayso suuragal ma tahay xataa lacagaha deemaha Soomaaliya lagu leeyahay qayb ahaan in loo qoondeeyo si loogu bixiyo lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya waayo waxa sii kordhaya xataa lacagta dulsaarka ee lacagtan ay dhalayso mar walba lagu sii yeelanayo Soomaaliya su'aal fiican laakiin lacagaha marka Soomaaliya la siiyo gargaarka lacagta inta badan waa lacag ku baxda arrimo gargaar iyo humanitarian waxyaalaha loo yaqaan taas waxay timaadaa marka ay dhibaato ama abaar jiraan ama duufaan jiraan ama waxyaalaha soo kala dhacay wax la budget la gelin karo ma lacagta inta 1.2 bilyan lacag ku dhow ayaa humanitarian naga soo gashay lacagta developmentiga ama horumarka ee wadanka soo gasha oo 700 dheeraad ahayd sanadkii hore wadamada ka timi waa wax sanado hore la qoondeeyo sanad kasta qayb timaado talamba maanta waxaan la shirnay USAID وهذا horumarinta Mareykanka waa ognahay sanadka USAID Soomaaliya intay gelinayso sanadkii hore bishii 2012 bishii 12 ayaan heshiis wada galay 300 milyan oo 3 sano soconaya sanad kasta ognahay marka waxaan ka filayno wadan walbana waa sida baahiyaha kala duwan ee wadanka ka jira daraadood lacagta tan waxaan ku dadaalnaa in systemka la soo mariyo horta budgetka aan ku darsan karno la soo marsiyo weli maadaama systemkan ka shaqeynaa PFM-ka kullu ma soo wada maraan marka World Bank waa soo marsiya kuwa kale soo marsiyan oo budgetkii lama gelin karo dhamaantood marka waa arrin aan wadno shaqadeeda hadda in wadan markaan heshiis wada gallo oo deeq bixinayaan deeqday noqoto deeqan ku xisaabtami karno ognahay intay tahay oo budgetka la gelin karo miisaaniyada dawladda oo sidaa wax lagu xisaabin karo marka sida hadda wax yihiin humanitarian lacaga ma qorsheyn karno oo kuma dari karno budgetka tan kalena waa ognahay sidoo kale baxayay cidda fulinaysa meelaha laga fulinayo hay'adaha fulinaya waxaanu sameynay hadda system la yiraahdo AIMS waa Aid Information Management System gargaarka wadanka soo gala sidoo loo maamul lahaa
oo online hadda noqonaya bishan oo qof kasta waddan walba wuxuu soo gelaya la arkaayo cidda qaadatay, gobolka la geeyey, tuulada la geeyey. mid kaa markaa daba joogo oo la yidhaahdo qiimeyntii iyo dabagalkiina waa samaynay oo dabagelaya, qiimeynaya, hubinaya. marka arrintaas waa arrin deeqa oo gaara. budgetka waa jiraan wadamo markaa sida Turkiga oo kale iyo wadamo kale oo lacagna siinaya direct budget support oo miisaaniyadda naga taageeray. waa ku qoran reportkan, waa soo baxaya, waa la daabacay, wasaaradda qorsheynta laga helaya book dhan oo sheegaya wax kastoo waddanka soo galay, wixii central bank soo maray iyo wixii soo maray hay-ad kale iyo wixii waddanka meel kale soo maray oo dhan ba uu ku qoran. marka labadaba isma gelayaan oo laba qaybood ba kaliya. dad badan waxay ka dhawaajinayaan in waktiga hadda dowladda Soomaaliya u ololeynaysa in deyntan laga daayo xataa ay tahay waqti 2 sano iyo ka badan hadda Soomaaliya ay soo gudubtay dowladda jirto, wixii hadda ka dambeeyay olole doorasho iyo wixii la halmaale la geli doono. marka tanna ay iska tahay un wax iska soo celcelina, laakiinse aysan rasmiyan ahayn wax hirgeli kara waqtiga hadda la joogo. ma kula tahay xilligii ugu fiicnaa in hadda la joogo oo hawshan inaad qabataan ay tahay? horta haddii aan deynta lena ka cafin oo wadamadan qiimaha nugula naga cafin, waddanka wax gargaarkan hadda soo tiriyey iyo humanitarianka iyo waxyaalaha yararka horumarinta ka badan oo na soo geli kara ma jiro. bangiyada adduunkana, bangiga adduunka iyo meelaha kalena macaamil aan ka badan wax yaroo deeqa maaha lama yeelan karno. marka waa muhiim in aan si deyntan oo ka cafiyo aan processkan sida loogu talagalay u fulinaa, shuruudahi aan kasoo baxnaa. shuruudahan 18 shuruudoodna haddaa fiirisid mid kastaa fiiriso wax waddanka dani ugu jirto. waxyaalo fara badan oo waddanka ka qaribnaa ayaa processkan aan ku saxnay. waay Dr. Culusow, horta wasiirku waxa weeye asagaa qirayba hadda oo ah in miisaaniyadda wax la soo mariya inaysan jirin oo deeqdaas oo dhan hadda aanu ka hadlaynay. marka humanitarian lagu magacaabo waxaa keenaya waxa weeye deeq-bixiyaashu waa inay helaan farsamo ay hawshii wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda ay ku fulin lahaayeen. matalan wasaaradda caafimaadka oo kale, waxbarashada oo kale, muxuu ahay biyaha oo kale hadday samaynayaan. marka maadaama aysan rabin inay u muuqdaan ayagu inay wasaaradihii isu bedeleen, waa inay title siiyaan. marka humanitariana ayaa loo bedelay. marka waxa keenay in la isticmaali waayo miisaaniyadda waxa weeye in deeq-bixiyaashu ay runtii u suurageli weysay in la helo maamul wanaagsan oo ah mataqaanaa hay-adihii dawladda iyo dawladnimadii laftigeedii. madda labaad, ilaa hadda waxaad arkaysaa hadda markii aad fiirisay 18 qodob oo shuruudaha hadda wasiirku ka sheekeynayay, waxaa ka mid a waxa weeye deyn ha qaadanina, dad deyn ha ka qaadanina gudaha. wasiirka maaliyaddu hadduu qof mushaar uu leeyahay, Zahra haddii mushaarkeeda waa in ayada toos loo siiyaa oo aan qof kale loogu dhiibin. wasiirku waa inuu amar soo saaraa oo haddii dawlad goboleedyada lacag la siiyo inuu soo celiyaa. ilaa haddeertaan lacagihii loogu dhiibay dawlad goboleedyada waa u gudbin la'yihiin, waana siin la'yihiin. maalin walbaba muran iyo mataqaanaa dacwaa ka taagan. deeq-bixiyaashiina waxay leeyihiin war lacagtii laydinkugu dhiibay dawlad goboleedyada ma siisaan, kabacdina aad u sheegtaan processkii xisaab celinta iyo sida uu yahay. marka maamulkii basic ahay ayaa ilaa hadda shaqayn waaye. warqadii hadda ay wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahay guddoomiyaha bangiga dhexe ay usoo direen hay-adda IMF-ta oo markii la qiimeynayay hadda fulinta barnaamijkaana waxaa ku qoran horta ciidamadan ah nabadgelyada in loo baahan yahay ilaa 2021 inay dalka sii joogaan. midda labaad, waxaa aada loogu mataqaanaa hoosta looga xariiqayaa waxa weeye in nabadgelyada xaggeeda iyo dib u heshiisiinta xoogga la saarayo. marka aad ka hadlayso dhaqaale iyo horumar iyo maalgelin, waxaa ka horeeya horta marka u horeysa inuu jiro system iyo maamul xag nabadgelye ha ahaado, xag siyaasadeed ha ahaado. markaasaa waxaa laga yaabaa horumar iyo dhaqaale iyo waayo waxa ugu horeeya waxa weeye lacagahan haddaad miisaaniyad iyo dibad u baahan tahay, horta lacagta dalka gudihiisa waa inay ka timaadaa. marka dalkii dhaqaalihiisiiba hadduusan isku xirnayn wasaaradda maaliyadda ee federaalka iyo midda dawlad goboleedka ilaa haddeertaan laga shaqaynayo sidii laisugu xiri lahay, u malayn maayo qof kasta oo aqoon-yahana oo waxgarta inaysan hawsha laga hadlaayo inaysan jirin. arrinta deyn bixintu runtii waxaan isleeyahay waa iska mataqaanaa public relation loogu talagalay, ama dadweynaha uu sidii khayaali uu lagu geliyo 4 sana loogu talagalay maahane wax hadda oo ah
soo kordhinaysaa ma jirto. waata oo kugu soo noqonaya waata doctor culus oo kugu soo noqonaya waxyaraan doctorka halkaa saxiid yar aan u saxo way sida la socotaan sanadkii haddaan soo dhaafnay 100 milyan oo euro ayaa midowga Yurub Soomaaliya ugu deeqay oo miisaaniyada lagu taageeray 100 milyan shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la wadaago waddankoodana wadaagaan lacag waxaa jirta surge support la yidhaahdo taana waa la wadaagaa oo anagaaba qaybka processkaasi loo qaybiyo wayna socotaa humanitarian ama gargaarka bini-aadantinimo waa yaqaan doctorka u shaqeyso maaliyaddu lama soo marsiin karo budget maaha wax la qorsheyn karo oo wax abaara keenaan dhibaatooyin karo oo xagga la keeno markay dhacaan dadka lagu caawiyo way waa waxyaalo dadka lagu qoodanayo miisaaniyada lama soo mariyo meelihii miisaaniyada lasoo marinayo oo dhan sanadba sanadka ka dambaysa sanadkan kor buu sii kac 140 kale World Bankiga tii Turkiga tii meelo kale waxaasoo dhan waxay soo marayaan bangiga dhex marka kor ayay u kacday waana la ogyahay tan kale SMP-ga ama barnaamijka dancafiska waa sida keliya aan ku heli karno in aan kula falgallo hay-adaha caalamka waaweyn mataqaana bangiga adduunka ka mid yahay haddii aan la samayn halkaasaan joogayna wax isbedelaya ma jiro shuruudaha haddaan hamar ku noqdo waxaa ka mid ah in askarta mushaharkooda akoonkooda loogu rido askari kasta lacagtiisana toos u qaato oo dadkii dhexda ku jira meesha ka baxaan wax waddanka u fiican waxaa ka mid ah in caafimaadka wax lagu bixiyo waxbarashada waxaa ka mid ah in saboolnimada lala dagaalamo boqol waxyaalo waxaa ka mid ah in dakhliga waddanka kor loo qaado waxaa ka mid ah in khayraadkii kalluunka ee lagu heshiiyey in dowladda dhexe ku wada heshiiyaan la qaybsado waxaa ka mid ah khayraadkii maxaa la batroolka iyo arrimahaas oo waata doctor culus oo suu leeyahay qorshe 12kaas oo wada muhiima qorshaha dawladda ee dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe federaalka inay isla shaqeeyaan wasaaradahooda maaliyadda oo wax isla kaashadaan xataa qayb ayay ka tahay ayuu leeyahay mana jirto taasuu leeyahay hadda oo wada shaqeyn ma jirto dhexdooda ah marka taa maxaad uga jawaabaysaa sacaadatu wasiir waa kaga fikir duwanahay doctorka way jirtaa wada shaqeyntu wayna ku heshiiyeen waxyaalo fara badan wasiirkana hadda maalin kasta oo sharci kasta oo golaha wasiirada la geenayo intaan la geeno shuruudda waxa weeye waa inuu soo maraa wada tashi dowlad goboleedyada sharciyood badan baa yaala kii PFM-kii baa hadda yaala guddiga hor yaala oo la ansixinaya dowlad goboleedyada soo wada mareen kii cashuuraha mideynta cashuuraha ay kusoo wada heshiiyeen oo golaha wasiirada ansixiyey qaybsiga khayraadka waddanka ama sida fiscal federalismka waxyaalaha loo yaqaan oo dhan waxay u baahan yahay wada tashi la-aantoodna ma suurtagelayso wada tashigana wasaaradda maaliyadda ugu horeysa iyo kuwa dastuurka iyo arrimahaas oo dhan wada tashi la-aanteed ma suurtagelayan marka anagu fikran qabno waxa weeye dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ma kala maarmayaan waa inta sharcigu qabo marka wax kastaan qabanayna waa inaan kala tashanaa oo qayb ka noqdaan processka wax lagu sameynaa waayahay waxaan u gudbayaa professor Xuseen Warsame laba arrimood baan ku yar darayaa arrintaas kow horta arrinta kaga dhawaajiyo culus waa muhiim ee ah haddii maamul goboleedyadii iyo dawladdii dhexe aanay lahayn wada shaqayn oo dhaqaaluhu dhinacuu u jeedo aanay ka wada shaqaynaynin la gaari maayo hadafyada ay qaybta ka tahay in dayn laynaga dhaafo si aan mashruucyo u samaysano horta waa arrin muhiima arrin maqana ka maaha madaxdana ka maqan maa waxoogaa ma garanaysaa qolooyinkaygii guddiga dhaqaalaha barnaamijyada aan isku dayno laftiga iyagu in aan qabano ayay ka mid tahay inaan isugu yeedhno guddiga la yidhaahdo guddiga dhaqaalaha oo dabcan madaxweynuhu mid hogaamiyo prime minister ka mid yahay wasiir jamaal laftiisu ka mid yahay wasiirka maaliyaddu ka mid yahay wasiirka baacmishariga ka mid yahay bangiga dhexe guddoomiyu ka mid yahay shantayadii ma garanaysaa soomaaliyada aqoon-yahanadii aan ka mid nahay iyo muhiim maamul goboleedyada beresidentadooda marka haddii intaan isu keeni karno qorshaha iyagu waxa weeyaan inaan shir qaran isugu yeedhno haddii ilaaha yidhaahdo bilaha soo socda hadday June loo suurtooda ramadaanta marka laga baxo haddii ilaaha yidhaahdo oo markaa la yidhahdo waa dhaqaaluhu halku u socdaan annaga laftiga waan qaybta ka qaadano stadiyaa soo diyaarinana aan iyagana hor dhigno aan idhaahnana hadallada cabise uu ka hadlayo oo kale iyaga laftigana aan meesha soo gelino weeyaan ku jirta in yar aan dib ugu yar noqdo deynta iyo faa'iidadeeda dhaafidana in yarna aan ugu yar noqdo si fiican buu u sharxay Jamaal waxa laga faa'iideeyo laakiin de automatic ma aha haddii international IMF ay tiraahdo wixii waad ka baxdeen ma aha in wixii laynaga wada dhaafayo ma aha waddan walba 720 hay-adood iyo waddan ayaa lacagteena ugu leh 720 mid waliba uu xogaa in la yar qanciyo ayuu hadda u baahanaya gooni loola hadlo oo la yiraahdo inta naga mid wala marka wuxuu isku day doonaa inta ugu yar uu ka heli karo inta ugu badan uu ka heli karo inuu ku gogortamo
marka taa lasoo sameeyo gorgortankaa la sameeyo ayay dabeetana IMF-tu iyo World Bank inta isku tagaan odhanayaan war intaa ay dadkani ka tegi waayeen inagu aan ka bixino kabacdina markaasaa la odhanaya wadamadii haddaba waad u furi kartaan mashruuciyo aad maalgelin ugu samaysaan ama dayn ama deeq midka doonata lahaatee oo wadamo badan Shiinuhu ka mid yahay oo aad u doonaya inay maalgeliyaan baa jira xataa lacag ugu talagalan oo fara badan oo deeq abaa jirto 15 bilyan ah oo ay ugu talagalaan Afrika Soomaaliyana meelaha ugu horeeyay ay inay ka qayb galiyaan haddii la naga dhaafo deymahaas waxa marka la isku dardaro waxaan qabaa wax badan way noo dhiman yihiin meel loo socdaana inay yar muuqato ayaan arkaya anigu wadamo sidan oo kale Soomaaliya waxa ku dhacay oo dal burburay oo dhibaato ay soo wajahday oo deemihii lagu lahaa maalba lacag ay kordhaysay oo maaragtay intaas oo bilyan oo dollar lagu yeeshay oo laga cafiyay ma jirta xataa dalalka Afrika laba wadan baa jira Sierra Leone iyo waxaan maleeyaa ka Liberia haban maleeyaa ayuu haban filaya labadaba waa laga cafiyay waxaana looga cafiyay runtii hawa Sierra Leone iyo Liberia weeyaan waxa looga cafiyayna sidaa habka iminka inagu aan marayno ee marba talaabo leenagu xilay markii dambana ay in horboyso gorgortanka inoo gelayso IMF-tu sidaas lagu dhameeyaa marka waa hab la isla yaqaano oo caalami weeyaan oo xataa Shiinaha iyo wadamada la xiriira ay hadda doonayeen ka soo qayb galaan oo iyaga laftooda ayaa deymo badan hadda ka lumaan oo gaar ahaan waxaan daltiga ay yiraahdeen ay fureen Shiinuhu lacag badan baa kaga loo marka iyaga laftooda ka soo qayb galaya marka waxaas oo isku wada xidhan waana suuragal waa la naga dhaafi karaa hadii Ilaahay yiraahdo ma aha wax khiyaali ma aha runtii dadka in loo tusiyo wax khiyaali yahay ma aha wax khiyaali waa wax runa weeyaan oo hadii ay dhacdo hadii Ilaahay yiraahdo aan ka faa'iido karo hadii Ilaahay yiraahdo waa tahay wasiir Jamaal bal waxaad iga warantaa marka maheerkii ugu dambeeyay joogtaan hadda waqtiga joogtaan mase 6 bilood kadib waqtiyo dambe idin si dhimanaan doono walaal waxa weey waa sida processku u socdo marka kan bishan aakhirkeeda hadii la idmo aan waanta u dhameysay la galo waxaan loo bilaabay waxa la yiraahdo UCT waxa weey waa upper credit tranche waa loo yaqaan waxa weey waa 6 bilood 6 bilood waxa la fiirinayaa saddexdii qodob aan sheegay maamul wanaag waxa la fiirinayaa saboolnimada inaan la dagaalano documentiga ama qorshaha qaranka inaan soo diyaarino warqadan ay ku jirto ITRC-da loo yaqaan iyo inaan kuwii hore aan u galay aan dib u dhac ka iman dabadeedna waxa shiraya boardka ama guddiga golaha sare xukuma bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka shiraya halkaas ajendaha marka waxay dana xafiiska go'aanka decision point lagu gaarayo halkaas ka dhacay hadii la idmo taasaan ku heshiinay anaguna dadaalna qaybteeda marka taas dhacdo marka ayaa waxa furmaya marka processkii aan noogu sahlanaan lahay marka inaan adduunka kula falgalo shuruudihii oo dhan imtixaanka markaas way ku baasnaa Dr. Maxamuud Maxamed Culusow maxay tahay fariinta aad u dirayso dawladda Soomaaliya oo ku salaysan hanaanka aad isleedahay wadiiqada ugu habboon ay mari karaan waa noocaas maadaama aqoon-yahanadii waddanka aad ka mid tahay waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan wax yar uun caddeeyo waxa weeye matalan hadda bishii hadda aan soo dhaafno Marcheed UN Security Council-ka resolution ka soo baxay oo ah mataqaanaa ku saabsanay 200 iyo 2460 ahay wuxuu ku saabsan yahay in xataa hay'adihii kaalmeyn jiray inay kaalmadoodii ay ku xirayaan marka qaarkood wixii ka dhacay muxuu ahay Baydhabo kale ka dhacay ay leeyihiin waa in warbixin ay ka timaada waxay ka hadlayaan waxa weeye in eriyadii la eriyay ninkii ahay mataqaanaa wakiilkii qaramada midoobay dartiisii in ilaa hadeertaan ay tahay u arkayaan beesha caalamku wax khalada oo maaragtay danta dadka iyo dalka Soomaaliyeed ku jira oo san ahayn marka waxa weeye tii hadda la haystay oo mucaawanada ahayd oo la rabay in looga faa'iideysto ayaa hadda goboladii iyo mid walbaba aysan helaynin maanta sababtuna ay tahay shuruudo lagu wada xiro leeyahay waa in riboorradii la helaa wixii dhacay midii mas'uulka ka ahayd Baydhabo dadkii la dilay dadkii qofkii mas'uulka ahay hala soo sameeyo dawladdu marka waxa weeye anigu aan isleeyahay waxa weeye 18 qodob in lagu yiraahdo matalan waa inaad mataqaanaa aad record gareysaa wixii kharash iyo dakhli ka soo baxay ka baxa inaad wasiirku uu warqad qoro oo la record gareeyaa documentation in la yiraahdo waa in dadka la tababaraa waa in sharciyadaas aad geeysaa
waxa weeye waxay muujinaysaa xafiiskii iyo dawladda la dhisay iyadu horta inaysan fakerayn sideeda maxaa dawladnimo looga baahan yahay, dawladnimo maxay tahay, maamulka loo baahan yahay. dawladnimada ma ahan qofka wasiirka waa tahay, laakiin adiga wadiiqada kula habboon maxay tahay? wadiiqada ugu horreysa waxa weeye wixii talooyinka lagu siinaayo oo beesha caalamku ay kaa rabto waa wax kooban weeye. waxaa ballaaran, waxaa ugu horreeya inay horta xagga siyaasadda ay dawlad sharciga u hoggaansamayso ay noqoto, nidaamka ay raacdo, in maamul loo baahan yahay, in dalku uu noqdo dal midaysan oo isku xiran oo nabada, in mataqaanaa wax alla wixii fidqalalo iyo siyaasadda iyo iska horkeenaya la joojiyo oo laga hortago. markaasaa dhaqaalaha iyo 12 qodobaan ka tagnay iyo waxaas qof kastoo akhriya oo dugsiga sare ka baxay oo akhriya mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 12 qodob waa yaqaanaa, waana sheegi karaa. keliya waxa weeye wariyaha fulinaya maxaa loo fulin waayo qof walba intuu weydiinaya markaas oo kale. marka waddanku wuxuu ku shaqayn karayaa maamul saxa, nidaam cadaalad oo garsoor oo shaqaynaya, booliis shaqaynaya, ciidamo nabadgelyo shaqaynayaan, maamul isku xiran. miisaaniyadda hadda la keeno 46% deeq bixiyaasha bixiya, dalka intiisa kale hadda loo isticmaalay waxaan laga qaadaa waa hal deked. waxa weeye dekedii laftigeedii waxa weeye hadda waxaa kamid a shuruudaha in la negotiate gareeyo heshiiskii lala galay muxuu ahay qoladii maamulaysa meesha. waxay kamid tahay waxyaabaha oo ku qoran meesha oo 12 qodob kamid, waxyaaba oo basiga ku qoran. waxaas ka badan inaad qabato waa inaad adigu isu fakertaa, maahan in lagu fakeraa maahan markaasna lagu yidhaahdaa wariyo qashinkaa yarkaa iska wareeji si aad gurigaada u gasho, in lagu yidhaahdaa wax oo horumara iyo isbeddel ay keeni karta lama arko. waxaan isleeyahay waxa weeye waxaa maqan garashada ah dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. dadka mucaawanadana waxaa loo siiyey waxa weeye Soomaaliya waa failed state, waa dawlad. waxaa loo diyaar loo yahay in dib loo dhiso. waktigaas horta dib u dhiska waa inaan ka faa'iidaysanaa si aan uga hadalno deynta cafinteeda iyo deyn qaadasho kale iyo waata. aad baad umahadsantahay Culusow. bal ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir Jamaal. wasiir Jamaal, maxaad jeclaan lahayd inaad kusoo gunaanado adigana qaybtaada? horta aad bay umahadsan yihiin labada doctor, waa niman aqoon-yahano Soomaaliyeed oo wadankana ka naxaya, talooyin fiican nahaya. waxaan kusoo gunaanadi lahaa horta arrintan danacafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya. insha Allah waxaan rabnaa inaan sidaan ku qorsheynay aan heshiis kula galo adduunka inaan dhamaystirno. waxaan rajaynaynaa haddii alla marka taasi hirgasho inaan iska ilaalino inaan deymo kale oo kuwaas oo kala wadanka anfacayn aan loo baahnayn inaan wadanka dib loo gelin. waxaan kaloo isku dayaynaa inaan ka faa'iidaysano khibrada Soomaaliyeed laba doctor ka mid yihiin, golaha horumarinta dhaqaalaha waa Dr. Xuseen Warsame ka mid yahay, iyo dadka aqoonta leh inaan kala tashano bal sidii aan wadanka horumar rasmi oo muddo dheer qaata oo waara aan u gaarsiin lahayn. talooyinkaas waa inay noqdaan talooyin dadka Soomaaliyeed ka yimid, baahiyahooda iyo ahmiyadooda u gaarka. dabeedna aan sidaa ku hawlgala haddii alla idin rajaynaa waxa kan inaan markaan iska dhamayno inaan dib ugu noqonaa hore uga socon. waaya asna waxaan siin lahaa gunaanadka baldhankiisa Professor Xuseen Warsame. horta ha la wado oo xoog ha la sii saaro arrintan ma garanaysa deyndaafka waa muhiim weeyi, waayo hibis programka ayaa dhigaya mar alla marka arrimaha la dhameeyo in mashruuciyo loo furi karo, lacag deeqana la siin karo wadanka oo deeq oo aan deynahayna la siin karo, deyn fududna la siin karo ayay dhigaysaa. taasi waa muhiim. si taa loo helana siduu wasiir Jamaalba ka dhawaajiyey waxaa loo baahan yahay wada shaqayn dadka Soomaaliyeed iyo weliba madaxda dawladda Soomaaliya iyo madax goboleedyada oo haddii la yiraahdo annaguna aan isku day doono inaan ka qayb galo arrintaas haddaan nahay gudihii. ta saddexaad waxa weeyaan Culusow uu taabtay way isku xidhan yihiin siyaasadda, xuquuq bini'aadanka iyo dhaqaaluhu way isku xidhan yihiin. haddii aanad siyaasadda iska dejinin oo arrimaha xiisadaa socda aynaan iska dejinin dhaqaaqi mayno oo xuquuq bini'aadanka aynaan had iyo jeer isha ku haynin. siyaasadan dee ma garanaysaa taaganana waan dejin karaa iyadana aan dejino aan isxodxodano oo dawladda Soomaaliyeedna ay xodxodato kuwa macaaridka ka soo horjeeda, macaaridkuna ay dhagaha yara furaan oo ma garanaysaa iyadana waa marka saddexda arrimood haddaan isu keenno waxaan qabaa waynu horumar baynu gaari karaa haddii la yidhaahdo. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. sharaf ay ii tahay inaad barnaamijkaygala qayb gasheen. dhammaantiinna waa idin mahadcelinaya. waad mahadsantahay guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga daayo deymaha,
ma buuxiso sharuudihii loogu talagalay sidee ayaase deymahaasi looga cafin karaa qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkana waxaa igala qayb galay wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ku sugan magaalada Washington kana mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degan gobolka Michigan iyo sidoo kale Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaalayahan degan dalka Canada barnaamijkii waa naga inta intaynu barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doonana nabad gelyo